gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera uu heliyo xokiyaha fulinta dawladda hoose ee Berbera ayaa maanta qalab kala duwan ka gudoomay qaar ka mid ah qurbo joogta gobolka Saaxil qalabkan oo loogu talagalay laabka ama Berbera Public Library ee ay hirgelisay dawladda hoose ee Berbera Xuseen Wadaad Yaro isagu u hadlayay qurbo joogta qalabkan ku deeqday library-ga magaalada Berbera ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay kuraasta miisanta waxaan ka soo ururinay wadanka Sweden in ka soo qaadnay soo iibinay kadibna soo rarnay waxaan ujeedada ay tahay waxaan doonaynaa anagu wax badan ma waxaan laakiin waxaan u mahadnaqaynaa maayarka Cabdishakuur oo ruuxantii ah maayarada dalka aad iyo aad bay qurux badan tahay library-ga Berbera waa goob loo baahnaayo aad iyo aad u muhiim ah dhalinta reer Berbera waxa kaliya kula dardaarmaya inay wax akhristaan siyaasadda ay aan ku mashquulin laakiin ay wax akhristaan insha Allah biidmillah Ismaan Xaasho isaguna ku hadlayay gudida laabka ama wax xarunta kutubta ee magaalada Berbera ayaa isaguna ka mahadnaqay deeqdan la soo gaarsiiyay kulli maanta shucuurkayga anoo aad u sareeya waxa noo keenay waxaan u baahnayn saacadii aan u baahnayn kuraasta iyo miisaanta ay keeneen talawadaag iyo Xuseen iyo ciidankiisu waxaan jecel waxay noqdeen xilli aad u fiican xokiyaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo labadoodba halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay mar walba soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta xaruntan kutubta lagu kaydiyo ee Berbera waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Xuseen Wadaad Yare oo horena u caawiyay ama uga qayb qaatay isaga tiimkiisu library-ga qaybo kala duwan oo mashaariicda horumarinta gobolka ka qayb qaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale mar labaad u mahadnaqaynaa anagoo shalay u mahadnaqaynay ururka talawadaag inoo habla sharaf leh halkan ka joogaan annaga haddaan reer Saaxil nahay way jaaliyada reer Soomaaliland ee Sweden annaga way nagu suntay gaar ahaan gobolka Saaxil aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa kulli waan ku faanaa waayo qofkii ka warhaya ayuun baad dadka ka xiga qofkii ka warhaya ayuun baad dadka ka xiga waxay ku warwaraan baahiyaha asaasiga ah ee gobolka Saaxil oo dhamaantiisba ah haday tahay tuulooyinka iyo haday tahay magaalada haday tahay caafimaadka haday tahay waxbarashada runtiina waxaan aanan ilaawi karin oo kulli xiriiriyaha isku kaaya xidha mar walba bridge isku kaaya xidha anaga Sweden Xuseen Wadaad Yare Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera